shirweynihii saddexaad ee bahweynta ee afgarad saddex ayaa maanta ku soo gabagaboobay jawi farxadeed xarunta gobolka Hawd ee magaalada Balligubadle iyadoo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimid dalka dibadiisa iyo gudihiisa. Jaritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay lama taabtaan. in beelaha ay kula noolaadaan hab nabadgelyo beelaha ay oo wadaagta yihiin. in beelaha ay nabadgelyada ilaaliyaan meel kasta oo beesha deganay bariga galbeed hawdii waqooyi. in beelaha ay tixgeliyaan isdhexgalka bulshada iyo wada noolaanshaha guud. in guddiga guud ee shirka beelaha lagu magacaabay oo ah guddi horumarineed ay ahaan doonto mid la shaqaysa madax dhaqameedka iyo xubnaha dowladda kaga jira iyo cid kale oo danaha beesha la xidhiidho. in xiriir joogtaa beelaha kala yeeshaan xaaladaha ka jira deegaanada ay beesha aragtigeen. dhinaca kale waxa soo gaaray wafdi culus oo aad balaaran oo cuqaal salaadiin waxgarad ismo iyo madax dhaqameedada Soomaaliland oo boqolaal gaaray kuwaas oo lagu soo dhaweeyay caleemo qoyan waxa aanay ka hadleen goobahaasi madasha ugu horeyntii waxa shirkaasi furay Suldaan Barre Xaaji Xuseen oo si diiran u soo dhaweeyay salaadiinta ayaa ku bogaadisay nabadgelyada iyo qiimaha iyo sharafta ay u leeyihiin bahweynta ku dhaqan xarunta gobolka ee ka kala yimid dalkaasi sida qiimaha loogu dhamaaday shirkaasi halka ay ku dhawaaqeen salaadiin kale waxqabadka iyo isbarbartaaga ay ka go'an tahay Soomaaliland ee gobolka Hawd. Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo ku dhawaaqay 100 geela inuu kaga qayb gali doono waxqabadka gobolka Hawd. waxa goobtaasi ka hadlay barasaabka gobolka Hawd. shirkaasi ayaa waxa laga dareemayaa jawigaasi farxadda leh iyo asafgarad oo maanta uu xarafaan ugu mudantiin waa waxaan filaynay إن هجران هذا وصوغ الدشان أيضاً اللي كان غرين إلهينا وحن كبر يصير خير كريم إلهينا وفتشيه بيره إنا كما يتشان إنا لما يفهم إلا كتشتي أو كتشتي المسجد إلا كتشتي المسجد بيره وهو إيمان وهو بصوم غير إلي كارمين هذه oo xukuumadda la hadli jiray oo afka waxaan ku hadli jiray gobolka iyo marmarka beelaha ay joogaan beelaha gobolka ka tirsanay mid walba markeeda beeshaan ayaa u hadli jiray laakiin dhammaanta xukuumadda baa ka jooga beeshiina way shiraysaa marka runtii adiga oo madaxweyne wakiilka ah wakiilka madaxweynaha maanta oo afkii dowladda ku hadlaya waxaan runtii soo dhaweynayaa go'aanada beeshu ay gaadhay ayaanu soo dhaweynaynaa runtii وقادرنا وكل شقينا ما كما هذا يبغى سابعان لكن حكومة تبان متريا أنتي حكومة ولا شقينا سابع شقوا من قارنا وسود ويريا دعمة وحرم هذا قيها دمان قرنك هل كان نقول مرتقى علي أي شرف صمودان أي قيمة عليه أريك وطنه الدنيا وبويك حوك وهذه قلب الدنيا فقول أو قيد بلما كهوك سبولا يعلى ذو الكهوك وكبرك هوكي وحان داير غير من حدود يتهانو من هجاتين حدين هيدا وحان كيبا marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay garansiiyeynu shirkan isugu nimaadno oo aynu halkan ku kulanno ayaa mahadle aad iyo aad ayaan intii ku deeqday ee waddada ugu deeqday waxtar ha yaraado ha badnaado intii ku deeqday beela ahayd intii ashkaasta ahayd dhammaantood waan mahadnaqaya waxaan leeyahay allah idin siyaadiyo ku dhamaad sida oo kale waxaa noo fududeysay adeega internetka shirkadda Somtel ee wadaniga